دلال بدن الدنيا meel lagu dhaqnaado inta dhalasho lagu yimi lagu dhaafa geeray dhalal badan adduunyo in dhaqaale haystiyo dhalinyaro u roonay dhowr sano ku laliyay samada ku dhaweeyay salaan laga dhacayo dadka dhabarka jabiyay kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu u bixinay qisada abwaanka وعاو مرتي inoogu yahay abwaan Cabdalle Siciid Jaamac oo kamid ah da'yarta gobolka Sanaag ee hal abuurka barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamij taxane ah oo aan maalinba dhalinyarada hal abuurka leh ku soo martiqaadi doono abwaaniintu badanaa way sameeyaan suugaanta balse ma soo raaciyaan qisada ay ku timi suugaanta tan marka barnaamij u gaar ah oo aan u bixinay barnaamijka qisada abwaanka ama qisada fanaanka ayaa halkan ka dheehan doontaan insha Allah halkan waxa ku qoran suugaan badan oo qisooyin la runtii inkastoo dhalinyaradu ama abwaanintu ay aad wal xilxadaan qisooyinka laakiin sida saxda waxa weeye si aad u sheegto waxa laga yaabaa dareenka ma soo xambaarsan tahay ku kalifay inuu ka macaan yahay maasada sax marka qisadu ka wacan qisadu ka macaan tahay marka waxa weeye waxa in qisada la helo baa wanaagsan in laga beeshagan suugaanta sharci ma marka insha Allah de kulay wixii ay ku soo baxeen baynu halkan insha Allah ku wada dhigaynaa waxay noogu bilowdaa haddana anigu ta koobaad ba soo qabto dib adduunyo aad iyo aad ma hasantaa dib adduunyo waa ma saka hadlaysa adduunka oo runtii amal wacdi ah oo runtii iskaga soo dhacday oo ka bedelan maasooyinka aan halabuuray maasadan waxay ku timi runtii de adduunka marka u fiirsato ama qof kasta aqli leh aad istiraado war adduunku muxuu yahay ya ba maasadaas uma qoray manaysa dhalal badan adduunyoy meel lagu dhaqnaado inta dhalasho lagu yimi lagu dhaafa geeray dhalal badan adduunyoy in dhaqaale haystiyo dhalinyaro u roonay dhowr sano ku laliyay samada ku dhaweeyay salaan laga dhacayo dadka dhabarka jabiyay hadba dhinaaw ciiray cadeeda dhacayso iyo hargalbeed ka dhiganay dhul ilaah sameeyay dharaar roob ku daayo dhowr sano abaara isu soo dhaweeyay dhimasho iyo geeriyo dhisashada arooska iyo dhalashada isleegay waa dhimasho iyo dhisasho iyo dhalasho sax miskiin dhabarka rarashiyo dhoobada ka xoogsada iyo dhowr kun oo guri mid disto ka taajiray laba gelin isdhaafshay mid dunkaal waraabshay midna malabu dhiibay farxadda iyo dhiilada tii laga dhaxbeeray qabiyo aan dhamaanay dhalal badan adduunyo wuxuu yiri dhalal badan adduunyo geesiga dharbaaxay dhafarnimaad ku wadatiyo nacas jecel dhalaalka iyo dheehaaga beenta ah ha ku daba dhaxleeyay ninku jecel badhaydhayo firitan dhaqso xoor dhalal badan adduunyo 100 sano wax dheerayn dadkii kugu dhaqnaan jiray waa ka dhamaadeen dad kala dhaqso u kacay dhowr sano ku maashaday iyana way dhamaadeen anna waa ka dhiganahay dhaba lagu fogaaday damin dhigan hortayday maal badan hadaan dhaco dhowr toon ilaashado ama aan caruur dhalo dhayahan ka jecelahay qabi kala dhantaale dhamaanta ma wadin kullu waxa iga dhiman markaas dhalal badan adduunyo hay dhantaan ruuxan dhaayaha fayoobin adiga dharbaaxee bala ku dhexnooliyo dhagar qaba ma weydii dadka kala dhaweystay dhalankana habooshay doon dhinac ka raranay dhalal badan adduunyo حتى دون سيف عمرنا ما دون كررنا ودقيس ودون لا كررنا ديف markaad ka gurato nafsi dhaafka ka xidha dhararka ku leexshay dhalinyaro ku mariyay gabadhu ku dhaweeyay dhalada jirkiisa cadka ka dhameeyay qurxa kala dhantaalay hadii dhabi magooliyo dhar lagu xamay dhabarka wareemay waxa arkaysa qof saa ugu taloonin jiray hebel dheer la oran jiray oo aad hoos u eegayso waad arkaysa adduunka waa halkaas oo soo gutay waayeen hebel dheer bal waranay marka hoos u eegaysa hadii dhabi magooliyo dhar lagu xaman jiray dhabarka ka wareemay hadii dhabi magooliyo dhar lagu xaman jiray dhabarka ka wareemay dhalal badan adduunyo dhafoorada ku fiiqay markuu soo dhaweeyay dhaqaalana ku siiyay hadba dhinac ciiray cadeeda dhacayso iyo hargalbeed ka dhiganay dhaxdin gaaban baa tahay dhimashada horteeda dadku u dhaqnaada dib lagu soo noqon maayo waxa lagu dhaqay dhimashada horteeda dadku u dhaqnaada gelinki ku dhaafaa mood ku soo dhawaada waqtigu isdhaaf dhabo qula la wada qaad dhoofnin ka jeclaystiyo nin dhaqaale ka raba kalmadaas aad ugu badan tahay dhoofnin ka jeclaystiyo nin dhaqaale ka raba ku daba dhaxleeyay bal ayaama dheedho baritan dhaqso wuxuu dhalal badan adduunyo hay sukay dhamaan dhamin hoose hay dhigin waxaan ahay nin dhiifoon dhaadkan ka xidhanahay deyn maayo dhiilada dhayalsan maayo geerida kaftan la isla dhaafiyo dhageysan maayo haw haddaan dhuufto macluul ama gaajo dholon dhamin maayo xaaraan adna hay dhamaan dhamin dukaal hay macaaneen dheefta caraysi dharkeen hay ugu darin soor dharkeen ku baa waxaana le marka dharkeen hay ugu darin soor sida awr la dhaansaday garbaha dhooma haysul macnaha iska kay wadin hadba dhinac hay wadin dhigtaan ka furaysto amuuraha dhacayana
samir baan ku dhaafay ninku jecel badheeray ninku jecel ha wuxuu yiri dhalaal badan adduunyo ilaah baan ku dhaartay dhabadii rasuulkii dhaqankay wadiin diin baan la dhaadhicay dhaaraadana ku noolaan dhimashada ku sugaya waqtiyada kamida baa niyo waxa iskaga sokaan noqonaya ma taqaan adduunku sida uu yahay oo hebel iyo dad istaqaaneen iyo kuwa ku garaasatay qoom dhan oo aan joogino oo oranay halka hebel baa uu leeyahay maasaalasta dadka inta waqtiga tagayeen idinku dama ogdin maanu qura qof oranaya intaas maalinta guurtay waa ogaa ma jirto sidaan baa looga sibqayaa haddana waxa ku jiidanaya oo ku loosinaya aakhirada saal ugu socdo waa adduunka صح wuxuu ku tusaya marka dhoof wuxuu ku tusaya caruur wuxuu ku tusaya geel aari ma lacag kordhi inta saarin filimkaas ugu jirtaa صح filimka aan ka fakaraya baan marka maasadan iska bilaabay moogtahay ilaahay amarkii goor duhura oo meherada iska jooga bal qoray inta dhalaal badan adduunyo meel lagu dhaqnaado inta dhalasho lagu iibalo dhaafo geeray dhalaal badan adduunyo nin dhaqaalaha haysto dhan yar u roonay cid kale ay wax la wadaagtaan ma jirto waxa weeye ninkii lacag haysta iyo ninka dhalinyarada marka dhalinyarada waxa ugu soo dhacay dhowr film halkan oo fursado aad haysato moogta fursado badan baa banaan fursadahaas adduun ku laacinaya saas ku leeyahay marka gowdu way soxrayaan fursadahaas qayb badan baa tagay fursadii marka ninka dhaqaalaha haystana shilinka saar inta sii dhaqaalinta labadaas wada taarto marka wuxuu leeyahay nin dhaqaalaha haysto dhalinyaro u roonay ha ninka uu yaqaan waxay tahay soo baray isagu soo wadada ka gudub waxaan ka soo baasay wuxuu oranayaa nin dhaqaalaha haysto dhalinyaro u roonay dhowr sano kulaaliyay samada ku dhaweeyay salaan laga dhacayo dadka dhabarka jabiyay inta hore dhan waa ku kaxaynaysaa inta yarta oo dhan waxaad arkaysaa qof baad arkaysaa samada ay geysay oo ay wax walba u dhiibtay oo haddana isagiina gaboobay hantidiisiina dhammaatay hadduu caruur dhalana caruurtiisii noqotay nooc isaga kuwa xunba oo aan waxba ka fahmayn oo ay dhigtay markaa wax dhigtay dhulka dhimasho iyo geeri iyo dhisashada arooska iyo dhalashada isleegay baa saddexdaas maanta wax maqlas hebel baa dhintay hebel baa u dhashay hambal iyo bal arkaysa hebel baa iyo heblaayo ilaahay isu gacanfo allah u naxariisto hebel dhalasho wacan wax isku xiriir marka waxa weeye saddexdaasi intay isu jiraan dhabarasho waxa weeye macnaha qofkii xamaasha waa kooli waxa weeye istiqiica oo caruurta si uu soo gulaa doodkiis soo xamaasha marka way miskiin dhabarka rarashiyo dhoobada ka xoogsadaan iyo dhowr kun oo guri mid isto ka taajira laba gel isdaafshay laba gel isdaafnay dhafarnimaad ku wadato nacas jecel dalaalkiyo dhahaaga beenta ha ku daba dhahlayo ninku jecel badheeyo wilka dhaqaalay baritan dhaqso xor nin raga waa ku ogyahay waa ku yaqaana una tuli meesha rabax baan leh nacas jecel dalaalkiyo dhahaaga beenta ha ku daba dhahlayo